وقيبتني بوغا new concept English practice and progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with DeservesAnother official channel. waxaan ku soo qaadanayaa cashir cusub buug cusub sorry waa qaybteenii buugga new concept English practice and progress. Passage 11 waa sheekadii 11aad baan caawa ku qaadan doonaa videogan ama cashirkeenan. One good turn deserves another ayaa cinwaan u ah. One good turn deserves another. gacmays dhaafo ayaa galladii ku jirta. One good turn deserves another. I was having dinner. waxaan ka casheynayay at a restaurant maqaaxid when goortii Harry still ninka la yiraahdo came in uu soo galay. I was having dinner. I was eating dinner. waxaan ka casheynayay ama aan casho ka yeelanayay at a restaurant maqaaxid when goortii Harry still ninka la yiraahdo came in uu soo galay. Harry worked waxa uu ka shaqeeyay in a lawyer's office xafiis qareen years ago sanado ka hor. But he is now laakiin haddeertan working at waxa uu ka shaqeynayaa a bangi. He gets waxa uu helaa a good salary mushaar fiican, but laakiin he always haddii jeer borrows money wuxuu ka amaahsadaa lacag from his friends saaxiibadiisa and never pays it back. marna dib uma bixiyo lacagta ayada. Harry saw me wuu arkay and came wuuna yimid and sat wuxuuna fariistay at the same table isku miiska anigaan soo anfadhiyay soo fariistay. He has never borrowed money from me. weligiis lacag ama abidkii ma uusan iga amaahsan lacag. While goortii he was eating uu cunteynayay, I asked him waxaan weydiistay to lend me in uu ideemiyo £2. To my surprise la yaabkayga, he gave me wuu isiiyey the money lacagtii immediately isla markiiba. I've never borrowed any money from you. weligay wax lacag ma aanan ka amaahsan ayuu ku yiri. Harry said, Harry baa yiri. So now sida with haddeertan you can pay for my dinner. waad iga bixin kartaa cashadayda ayuu yiri. Passage 11 sheekadii 11aad. One good turn deserves another. gacma isdhaafo ayaa galladii ku jirta. xigmad ahaan bay u tahay tan ciwaanka cashirka. One good turn deserves another. I was having waxaan ka yeelanayay ama ka casheynayay dinner. casho ayaan ka cunayay ama ka yeelanayay at a restaurant maqaayad when goortii Harry still came in uu ninka Harry la yiraahdo soo galay. Harry worked waxa uu ka shaqeeyay in a lawyer's office xafiis qareen ama abukaate years ago sanado ka hor. But he is now laakiin haddeertan working at wuxuu ka shaqeynayaa a bangi. He gets waxa uu helaa a good salary mushaar fiican, but he always haddii jeer borrows wuxuu ka amaahsadaa money lacag from his friends saaxiibadiisa and never pays it back. marna dib uma bixiyo lacagtaas ayada. Harry saw me wuu arkay and came wuuna yimid and sat wuxuuna soo fariistay at the same table isku miiskii anigaan fadhiyay. He has never borrowed money from me. weligii lacag ma uusan iga amaahsan aniga. While goortii he was eating uu cunteynayay, I asked him waxaan weydiistay to lend me inuu ideemiyo £2. waa lacagta ingiriisiga oo £2 ah. To my surprise la yaabkayga, he gave me the money immediately. isla markiiba lacagtu wuu siiyey. I've never borrowed any money from you. marnaba lacag ma aanan ka amaahsan buu yiri adiga. Harry said, Harry baa yiri. So now you can pay for my dinner. waad iga bixin kartaa cashadayda. Comprehension waa fahankii. Phrases waa dulucda kooban and composition iyo curiska. Answer ka jawaab this question su'aalooyinkan in not more than aan ka badnayn 50 words konton eray. Su'aasha koowaad, where were you having dinner? xaggee baad ka casheynaysay ama aad ka yeelanaysay casho? Did you see ma aragtay Harry still ninka la yiraahdo after a while waxyar ka bacdi or not mise ma aadan arkin?
What does he always borrow from his friends? Muxuu had iyo jeer ka amaahdaa saaxiibadii? Did Harry ninka la yidhaahdo sit wuxuu soo fadhiistay at your table miiskii adigaad wax ku cunaysay? Or did he sit mise wuxuu fadhiistay somewhere else meel kale? How much did you ask him to lend you? Imise ayaad weydiisatay inuu ku deemiyo? Did he give you the money at once? Ma mar buu ku siiyey lacagtii or not mise muusan ku siin? What did he want you to do? Muxuu kaa rabay ama kaa doonayay inaad u samayso? Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Passage 11. One good turn deserves another. I was having dinner at a restaurant when Harry still came in. Harry worked in a lawyer's office years ago, but he's now working at a bank. He gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays back. Harry saw me and came and sat at the same table. He has never borrowed money from me. While he was eating, I asked him to lend me £2. To my surprise, he gave me the money immediately. I've never borrowed any money from you, Harry said. So now you can pay for my dinner. Comprehension, praise, and composition. Answer this question is in not more than 50 words. Where were you having dinner? Did you see Harry still after a while or not? What does he always borrow from his friends? Did Harry sit at your table or did he sit somewhere else? How much did you ask him to lend you? Did he give you the money at once or not? What did he want you to do? Thanks. ألف لكن نبي ألف لوس نبي ألف لا قذي